degdego oo hadeer soo dhacay ayaa wuxuu sheegayaa in xayiraad lagu soo rogay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kaasoo ayna samayn karin wax saxiix cusub iyo heshiis cusub toona. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaana laga mamnuucay inay wax ciyaartooy ah soo iibsato heshiis cusubna ay samayso kadib xayiraad ay dowladda UK ku soo rogtay milkiilaha naadigan ee Roman Abramovich. bilyaneerkan u dhashay dalka Ruushka ayaa dowladda UK la wareegtay hantidiisa taala dalkaas waxaana laga xayiray inuu soo gali karo Britain iyo inuu wax ganacsi ah ama shaqo ah ku yeelan karo iyadoo lagu eedeeyay inuu saaxiib dhow leeyahay madaxweynahan aan qoslin ee Ruushka ee Putin. waxaa sidoo kale kooxda laga xayiray in Iran ku iibin karo naadigan taasoo Chelsea gelin doonta iyo dhibaato u horjeedi doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea taasoo uga dhigan inay tahay xayiraad aan dhibaato weyn ku noqon doonta kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kooxda kubadda cagta ayaa la siiyay liisan gaar ah kaasoo ku sii ciyaari karto laakiin waxaa laga xayuubiyay faa'iido kasta oo ay heli lahaayeen bilyaneerkan Obranka. kubadda cagta Chelsea ayaan loo ogolaan doonin inay iibiso tigidhada daawashada garoonkeeda taasoo ka dhigan in Stamford Bridge noqon doonto meel maran oo cidla iyadoo kaliya loo ogolyahay shakhsiyaad kooban kuwaasoo haysta tigidhada waqti hore sii goostay. kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxaa laga mamnuucay inay iibiso dharka sida gaarka garamadaha kabaha iyo isku joogyada sportiska ah iyo wax kasta oo la xidhiidha ganacsi. suuqa kale iibsiga ciyaartooyda soo socda ayay ku bilaami doontaa xayiraad waxaana safka tababaraha Thomas Tuchel aan loo ogolayn inuu sameeyo saxiixiyo isku xoojinayo. tani waxay meesha ka saaraysaa tiro ciyaartooy oo lala xiriirinayay kooxda Blues oo ay ka mid yihiin Jules oo safiila uga ciyaara daafaca iyo weeraryahanka Dortmund Haaland iyo sidoo kale khadka dhexe Ingiriiska Rice kaasoo isaguna lala xiriirinayay kooxda kubadda cagta Chelsea waxayna meesha ka bixi doonaan hadal haynta iyadoo sidoo kale ay ku noqon doonto dhabarjo weyn kooxda kubadda cagta ee Chelsea. haddaba taa ka sii weyn ayaa waxay Chelsea ku noqon doontaa inayna wax qandaraas cusub u saxiixi doonin ciyaartooyda ay ka dhacayeen heshiiska sida daafaca adag ee Rudiger iyo Christensen iyo sidoo kale kabtanka Chelsea Aspilicueta dhammaantood si xor ah uga bixi doona naadiga Chelsea. wasaaraha UK ayaana sidoo kale wuxuu warbaahinta u sheegay in dalkiisu aanan noqon doonin meel laga baxsado iyadoo Ruushkuna uu duulaan ku qaaday dalka Ukraine kaasoo uu ka waday inaan wax ganacsi laga dhex samayn doonin dalkiisa rag shakhsiyaad oo ay ka mid yihiin hadalka sidoo u dhigay milkiilaha Chelsea. xayiraadahan iyo dhibaatadan sida ciyaartooyda xayiraada laga saaray tigidhada iyo dharka kooxda iyo in aan loo ogolaan doonin in ciyaartooydii hore sii joogaan heshiisyo cusubna ay u saxiixaan kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay ku noqon doontaa burbur weyn oo ayna filayn. sidoo kale war degdeg oo hadeer soo dhacay wuxuu sheegayaa kadib markii xayiraadii lagu soo rogay kooxda kubadda cagta Chelsea dhinaca iibka naadiga lagana mamnuucay in Ibraanku uu xaraashi karo naadigan uuna suuqa dhigo ciyaartooyda sidoo kalena inuu oo heshiisyo cusub ka saxiixdo ciyaartooydiisii hore u sii joogay ayaa waxa Premier League u ogolaaday inay sii ciyaari doonaan Premier League kaasoo Chelsea u ogolaanaya inay ciyaari karayaan. Premier League oo go'aan laga sugayay ka gaarista ciyaarta caawa ayaa waxaa tilmaantay inay dooda la xiriirta in dib loogu dhigi doono maadaama niyad ahaan ay burbursan yihiin ciyaartooyda iyo tababaraha iyo taageerayaashuba. maamulka Premier League ayaa shaaciyay in ciyaartan ay waxba ka bedeli doonin dhinaca caawa waxaana la bilaabi doonaa 10:00 xilliga geeska Afrika. sidoo kale tababaraha Thomas Tuchel ayaa dhinaciisa waxa uu xaqiijiyay in kooxdiisu ay ciyaari doonto caawa sidoo kalena xidiga heer Faransiis ee N'Golo Kante ayaa noqday ciyaartooydii ugu horeeyay isaguna ka hadla ciyaarta caawa waxaana muuqaal baraha bulshada la soo galiyay ku yiri marwooyin iyo mudanayaal caawa ciyaarteeni ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay noqon doontaa inay midii naadiga ugu horeeyay ay saameysay dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya taasoo ku noqotay filan waa saameysay dhaqaale ahaan iyo niyad ahaanba waxayna noqonaysaa inay naadigu lumiyo soo iibsashada ciyaartooy iyo sidoo kale in ciyaartooydoodu ay qandaraas cusub u saxiixi karayaan
daba daawade maxay kula tahay adiga fikradkaaga iyo sidee ayay noqon doontaa xaalka kubadda cagta Chelsea